Lionel Messi waxa uu leeyahay jir dhammaystiran iyo awood dheeri ah oo uu kaga hortago inta ugu badan dhaawacyada badina ma ahan xidig ay sahlan tahay in la dhaawaco sirta ugu badan ayaa ah awoodiisa jireed iyo weliba xirfadda uu leeyahay inuu ka badbaado halisaha balse waa kay dhaawacii ugu weynaa ee abid ku soo gaara garoomada kubadda cagta inta uu xidig yahay dhaawacaasi oo sababay inuu ku seego final tartanka Champions League kadib dhaawacaasina maxaa dhacay Lionel Andres Messi waxaa lagu tilmaamaa mucjisada kubadda cagta taasi uu ku muujiyay garoomada kala duwan ee kubadda cagta lagu ciyaaro haddii uu ahaan lahaa xidig dhaawac badan marnaba heerkan ma uusan joogi lahayn tan iyo markii uu bilaabay inuu Barcelona matalo waxa uu Messi burburiyay rikooro taariikhi ah oo kooxda horyaalka iyo guud ahaanba kubadda cagta caalamka ah waa xidiga ugu koobabka badan Barcelona waa xidiga taariikhda ugu goolinta badan kooxda Blaugrana iyo horyaalkaba sidoo kale waa goolyaha ugu sareeya kulanka El Clasico iyo xidiga ugu caawinta badan waxaana intaas u sii dheer inuu leeyahay rikooro kale oo aan halkan lagu soo koobi karin balse waxaas oo dhan waxa ay noqon lahaayeen wax aan dhicin haddii dhaawacii ugu halista badnaa Lionel Messi soo gaaray uusan si weyn kaga soo kabsan lahayn marka dib loogu laabto sanadii 2006 waxaa kubadda cagta ka dhacay dhacdooyin badan oo taariikhi ah oo ilaa ay hadda la xasuusto dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta lagu xasuustana waxay ahayd finalkii tartankii koobka adduunka ee 2006 lagu qabtay dalkaasi Jarmalka dhacdadii hirtida ee Zinedine Zidane uu ku sameeyay khiyaanolihii reer Talyaaniga Marco Materazzi iyo weliba soo shaabixii wiilka lagu neenaaso La Polga kaasi oo ah Lionel Andres Messi xidiga ugu hanashada badan haatan abaalmarinta Ballon d'Or Lionel Andres Messi xilligaasi waxa uu ahaa mid aad ugu faraxsan inuu ka garab ciyaaro saaxiibkiisii iyo hogaamiyihii Barcelona xidig ahaan ee Ronaldinho xilli Barcelona sanadkaasi ay ku guuleysatay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kama dambaystana waxay kaga badiyeen kooxdii awoodda badneed ee Arsenal taasi oo finalka iskeentay iyadoo kulan quraan laga badinin Messi iyo kooxdiisa Barcelona ayaa wareegga 16 kooxood ee tartanka Champions League kula kulmay naadiga Chelsea oo markaasi ku xisaabtamaysay koox awood badan oo macallin u ahaa ninka isku neenaasay Special One ama midka khaaska ah ee Jose Mourinho waxaana xidigihii ugu muhiimsanaa ee Chelsea ka mid ahaa Didier Drogba, John Terry, Frank Lampard, Ricardo Carvalho, Dal Horne iyo xidiga kale oo qayb ka yahay Arjen Robben Leo dhammaan xidigaha Chelsea ayuu sida uu doono ka yeelay sababtoo ah aad ayuu u xawaara badnaa waxaana uu garab ka helayay xidigii loogu cabsida badnaa Barcelona Ronaldinho ka oo inta badan xidigaha Chelsea ay diiradda saarayeen xidigihii ugu adkaa ee kooxda kubadda cagta Chelsea ee qadka dhexe ayaa inta ugu badan aad ula dagaalamaya Lionel Messi waxaana ay ku sameeyeen raacashooyin halis ku ah nafsidiisa ugu dambeyn ciyaaryahan Dal Horne ayaa jilibka ka saaray taako kadib markii uu Messi dhulka soo dhigay ciyaaryahan Arjen Robben oo markaasi raacasho ka sameeyay dambeedka bidix waxaana markaasi uu qaatay Dal Horne kaarka cas macallin Mourinho ayaa ku guul daraystay joojinta mucjisada kubadda cagta Lionel Messi habeenkaasi balse kulankii lugta labaad ee ka dhacay garoonweynaha Camp Nou waxa ay wax walba ahaayeen kuwa isbedelay kadib markii Messi uu dhulka fariistay sabab la xiriirta dhaawacii ka soo gaaray kulankii ka dhacay lugta koobaad gegada Stamford Bridge 23 daqiiqo ciyaarta oo socota ayuu Lionel Messi kubadda banaanka u saaray kadib markii uu raacasho yar kala kulmay Arjen Robben Messi oo oynaya wajigiisana xanuun badan laga dareemayo ayaa dhaawac garoonka looga saaray Frank Rijkaard oo ahaa macallinkii Barcelona ayaa xabad ka geliyay Lionel Messi sida wiilkiisa oo kale waxaana markaasi kadib lagu bedelay baasaagii halista badnaa ee Henrik Larsson Messi waxa uu Barcelona ka maqnaa dhaawiciisa dartiis 16 kulan oo muhiim ah waxaana kulamadaasi ku jiray finalkii tartanka Champions League oo ay Barcelona la ciyaartay naadiga Arsenal laanta Messi ayna Champions League ku guuleysteen sabab la xiriira goolal ay dhaliyeen Samuel Eto'o Feliz oo barbaraca goolka ah u dhaliyay Barcelona iyo Plate oo isagu goolka dhimashada dhaliyay kahor ciyaarta aan dhamaanin Messi 15 xilli ciyaareed oo uu joogo kooxda Barcelona wuxuu dhaawac ku seegay 69 kulan waxaana xusid mudan in 41 kamid ah dhaawacyadaasi uu ku maqnaa saddexdii xilli ciyaareed ugu horeysay Leo waxa la fahansan yahay in wax badan uu ka bartay dhaawacyadaasi faraha badan maadaama xilligaasi uu aad u dhayaraa aqligiisan uu ahaa mid aan aad u kala goyn waxaana inta kadib uu ka taxadiraa dhaawacyada kumana sii jirto hadda maadaama daadiisa ay kal hore 30 ka dhaaftay La Polga waxa uu ku guuleystay abaalmarinta xidiga adduunka
tirada ugu badan ee xidig uu ku riyoon karo 6 jeer ayuuna qaatay sanadii 2019 oo ahayd markii ugu dambeysay xidiga ku soo xiga waa CR7 ka oo isaguna 5 jeer ku guuleystay kubadda dahabka ah sanadkan ku taamaya haddaba daawade adigu miyaad jeceshahay Lionel Messi uusan dhaawacmin inta xirfadiisa